sorry haddaan inta ku qoro I oo inta boostar fi gelsho oo intana v gelsho waxaan loo yaqaanaa I've original waxaan jiray I have waxa ka maqan HA laakiin H saa in loo qoro I have yaa la bara yaa yaqaana waxa yaqaana qof awal la soo baray san qof awal san la soo baray yaqaana okay qof awal I have yaqaanay oo yaqaanay IHAVE baa aqoon kara insaan loo soo gaabiyo okay ardayga marka miskiin aan kan aqooninin in originalki saan ah aan aqooninin haduusan ogeyn inuu saan u qornaan jiray saan soo fahmaya marka ma fahmi karo marka sharaxaad badan buu ka rabaa waxa aad dhigaysaay waa in noqdaan wax cad oo clear ah kalaamullaahi baa la qorayaa la dhigayaa ilaahay quraan subxaanahu wa ta'aala inaan dal qaadana ma waxa la nimaa inta ninku soo hoydo wuxuu siiyay lag wuxuu ku yiri iska jir waa lagay isoo dal ku galin wallahi waa quraan dal ku galin Soomaaliya laba macallin baa soo martaa la sheegay labada khatar ahaayeen mid wuxuu yaqaan jis ama kaliya quraan kale ma aqoonin ka kaatan jis ama u yaqaan laakiin way kala fiicnaayeen asoo mid baadiye maraya oo quraanka dhan jis ama ka yaqaana wuxuu ku soo baxay meel degan wuxuu ku yiri dugsi ma haystaan waxa ma dugsi ma haystaan wallahi quraan iska baanaan lahayno ana macallin uu yiri ha ana macallin geed baa loo waabay arday loo soo aruurshay gogol baa loo dhigay arday la soo keenay fariisin baa loo sameeyay ha markii ama gaareen waxa baadiyaha aan ka ah in macallinka neef ariga la siiyo xafladii arday loo dhigo jugsa dhameysay xogaa fasaxa qaataan wuxuu ku yiri markii ariga loo keenay neef ariga ahaa wuxuu yiri waxaan rabaa in fasax la siiyo xartii sheekhan soo fiirinaya bil fasaxaan qaadanaya haye baa la yiri bil fasaxu qaatay just taarag soo bartay ama yaqaanaya waa soo laabtay gow justaaragu baray xaflad baa loo dhigay arba loo soo aruurshay bil fasaxadan la siiyay qasam Allah soo bartay waxa la sheegaa asagii ardadii asaga bil ka hor dhameeyay quraanka bil ka horeeyay kaliya quraanka haba fasax buu qaataa uu soo bartaa uu soo qaataa uu soo dhigtaa adiga hadaa rabtid inaad wax dhigtid oo macallin noqotid ana quricii lagu baray fadhidid wallahi sa ku soconaynin maalin walba internet gal madrasooyinka aad traininka qaado ma baa la sameyn karaba macallinka quraanka dhiga aad tiraahdo walaalka hal ma training ma ka jiro xuliyay ma akhi maya wallahi wadaasanahay darsi baan dhiga waa darsiga dhigaysa lagu tababaraya quraanka dhigaysa laga caawinaya waxa laga yaabaa inaad soo faa'iidid wax aad waliya qaldi jirtay qoyan dhacday mana bay dhacdaa marka time agolow time bixi training qaado hadaa ka xishoonaysa hataa hor fariisto macallimiintu isleedahay hataa waa weyn tahay internetka gal ha inka soo waxba laga baranin sama ajira soo qaado buut yarka akhri wax isbar adiga laakiin wallahi hore aadi mayo oo wallahi gadaal aadi mayo wallahi halkan dhaafi mayo asma cadaalad ma ha macallinka tanaasan amu yaqaanay magaalo joogay ardayga kii ama dhaaf ama gaaraba madaxu jabshaa shaydaanka yaa kaxaya quraan baramayo inuu iga fidnaynaya wala saara markii 10 arday laga kaxeeyay baan aqlo wuxuu warinkan ardayga ama gaaraba cayrinaya imtixaan laga qaado hadii imtixaan laga qaatay waa carrayba ha illa quraan amu ka yaqaan magaalo joogay waa baran karay maanta iyo intuu dhaweyka soo baran kara asaguna miskiin marka adiga xaq u dhibay ilmahana u dhig ana dhigo waxaan aqaanaa macallin wadankan yimid oo xogaa aqoon lahaa ardadii ugu horreysay maanta loo keenay wuxuu u bilaabay kitaab la yiraahdo usul 3 اعلام رحمك الله والله شنجري هاي اعلام رحمك الله انه يجب علينا وربعي كاي قانا wax u sheegayso miskiin weeyga wax dhacay ka khaldan marka waxaan dhahnaa annaga maanta uma baahnin macallin very high qualification haysta shahaadooyin sare wata waxaan rabnaa macallin yaqaan ardaygan maxaa ka khaldan kana sixi kara laakiin very high halkaasan jooga ardayna halkaan ay joogan imsaadin dhaxaysa inuu soo laabtana mar raba asagu muhiim waxa ah heerka rabtaba joog aqoonta tahle akaato in aad qof yar iyo qof weyn wax bari karto laakiin wuxuu leeyahay sheekh anu ma sha Allah dad weyn wax u dhigayo jaamacadda soo dhigi jirayo ilmo wax ma dhigi karo aw ku dhawaatay khalaas waa qofka ziirada wax bari kartaa midka haygana wax bari kartaa laakiin hada tiraahdi anu hal group aan fariisanaya waa jabaysa cilmiga laga faa'iido doono okay inta dhextaal qaat halkaan dama ka sii socdo waxa ku xigi doona example-ladaas ku jira meeshan halkaan waxa imaan doona wax loo yaqaano haday isku yimaadaan laba sukuun iltiqaa saakiniin